soo dhaweynaya Dr. Maxamed iyo dhammaan shaqaalaha xafiiska oo salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sida dhaqanka dawladnimaduba tahay maanta waxaan halkan u joognaa inaan wadaacno ama aan sagootino walaalkeen Cabdirisaaq oo runtii xafiiskan muddo walibana xilli aad u adag ka shaqeeyay sida uu horeyba xafiisyo kale oo dawladda uu maaragtay uga soo shaqeeyay waxaana u rajeynaynaa guul iyo horumar ilaahay idankiis. sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa xogayaheena joogtada cusub Dr. Maxamed Ibraahim oo aan filayno inuu xafiiskan ku soo kordhin doono horumar iyo maaragtay isbedel la taaban karo. waxaan rajeynayaa in dhammaanteen aan walaalkeen ka saacidi doono khibradda waayo aragnimada iyo aqoonta aan u leenahay xafiiskan muddada uu maaragtay odayga inoogu yahay xafiiska, in garba loo noqdo, in la garab istaago, in la taageero, in aan ka wada shaqeyno dhammaanteen in la guuleysto. haddii ma haysano option kale ama khiyaar kale oon ahayn in xafiiskeenu uu dhaqaaqo, xafiiskeenu inuu horey u socdo, wixii maaragtay dadaal ahaa ee horey loo soo geliyay iyo halkii laga yimid nin walba waa qori isku dhiib. shalay Cabdirisaaq meel buu ugu yimid, meel buu geeyey. waxaan rajeynaynaa doctorkuna inuu geyn doono meel ka wanaagsan, laakiin cidda assetka raasamaalka loo baahan yahay inay asaga ka shaqeeyaan inuu guuleysto waa idinka. shimbirna ma duusho garba la'aan, marka inaad garbihiisa noqotaan baan rajeynayaa, si sharaf lana aad ula shaqeysaan. xafiiskeenna insha allahu maanta war badan male. waxaan u baahannahay inaan hadda wixii ka dambeeya uun agaasimayaasha gooni gooni iyo si guud shaqaalahaba uu inoogu shirin doono xogayuhu, aan u kulmi doono si aan muddada wada shaqeynta aan leenahay ay inoogu dhammaato si wanaagsan. dhammaantiin waa idin salaamaya. mar labaad waxaan leeyahay Cabdirisaaq guul iyo horumar. doctorkana waa soo dhaweynayaa. dhammaantiinna waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.